maantay gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu la kulmay bahda waxbarashada oo ugu horeeyaan midowga dugsiyada gobolka Banaadir. midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxay ka mid yihiin bahda waxbarasho aad u ballaaran dugsiyada ugu badan gobolka Banaadir haya. marka sidaas daraaddeed gudoomiyaha ayaa la kulmay si uu uga dhagaysto waxbarashada meeshay marayso, ardadii sanadkii hore dhacday iyo caqabadihii ka yimid iyo sida loo xaliyey iyo siduu agaasinka uga shaqeeyey midowga dugsiyada gobolka Banaadir iyo si guud bahda waxbarashada iyo sidii looga baaqsan lahaa in mar kale arday sidaas u tiro badan ay imtixaan ku dhacaan, taasoo looga baaqsan karo in ardayda loo dhammeeyo manhajka, in muraajaco fiican la siiyo maadaama imtixaanaadkii shahaadiga ee dowladdu ay qaadaysa ay soo socdaan. ay kala yihiin imtixaanka fasalka 8aad ee gobolka Banaadir uu qaadayo 17 bisha May bishanaad 2021 iyo imtixaanka fasalka 12aad ee uu qaadayo qaadaysa wasaaradda waxbarashada ayadana isla bisha May bishanaad 2021 hadda la imaanayay laakiinkeeda wasaaradda qaadayso in marka ardadaas waqti dheer soo qaatay waqti dheer soo baranayay loo wada dadaalo. agaasinkuna uu mas'uul ka yahay waxbarashada gobolka Banaadir hogaaminteeda iyo tiyeynteeda iyo la xisaabtanka bahda waxbarashada in la xisaabtamo wixii caqabadaha oo hore u dhacayna meesha laga wareejiyo la xisaabtamo ayaa uu ahaa shirkeenna. si fiican aan isku afgartay midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxay gudoomiyaha la wadaageen meesha ay marayso waxbarashada gobolka Banaadir, agaasinkiisa ula shaqeeyo iyo hawluhu sida ay noqdeen iyo wixii iska bedelay caqabadii sanadkii weedka dhacay waxa iska bedelay inta agaasin wax ka qabtay ay la wadaageen. annagoo agaasinkana waxaan la wadaagay meesha aan wax marsiinayno. insha Allah waxaan rajaynaynaa in imtixaanada soo socda ee shahaadiga ah ay ka soo baxaan wax qurux badan hadda aleedmo gudoomiyahana uu muxuu ahaa laga sugayo inaan wax ka bedelno. bahda waxbarashada waxaan ugu baaqayaa dhammaan dugsiyada midowga dugsiyada gobolka Banaadir, walaalaha waxbarashada iyo cid kasta waxbarashada ka shaqeysa inay ardada manhajka dhammaystiraan, inay muraajacada fiican ardada siiyaan, in waalidiintu u soo jeestaan inay ardada ka warqabaan ardayga wax akhriyo iyo ardayga meesha jooga iyo soo duruusta u akhriyo inay ka warqabaan waalidka ayaan ku baraarujinayna. waalidka waalidmo agaasinku wuxuu diyaariyey qorshe oo ku wacyigelinayo ardada imtixaanka galaysa 8aadka iyo koonfurta waalidmo maalmaha soo socdaana arki doontaan annagoo ku yeerina dhammaan dadka ku xeeran waxbarashada saamilayda waxbarashada waalidmo dhammaanteed u yeeraynaa. sidaas daraaddeed ardada waxaan ugu baaqaynaa inay istijiyaan, niyaddooda dhistaan, waxbarashada ku dadaalaan, duruustana akhriyaan. imtixaanku uu yahay keliya in arday lagu qiimanayo wuxuu u bartay bes, laakiin maaha wax ardayga lagu ciqaabayo. waalidmo agaasigu wuxuu diyaar u yahay inuu ardada gobolka Banaadir ku nool uu awood siiyo, inuu wax alla wixii caqabada ka wareejiyo, inuu alla wixii u tarahaya waxbarasho imtixaankooda iyo waxbarashadooda hore u wada hayaan uu ka shaqeeyo insha Allah. arrintaasna waa arrintii maanta la isla gartay gudoomiyaha gobolka iyo agaasinka iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir. waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda bahda waxbarashada inteeda dhiman inuu gudoomiyuhu la fadhiisan doono insha Allah, soo sidoo kale talooyinkooda u dhagaysto horena loogu socdo insha Allah. aad u mahadsantihiin, wada shaqeyn wacan iyo diyaar garow fiican insha Allah. aad u mahadsan